dhaqaalaha ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga anigoo magacooda ku hadlaya waxaan soo dhaweynayaa bogaadinayaa e-pesa beesanyahay aan maqli jiray waagii horeeto inkastoo waayadan dambe $1 ii tuura ay igu dhaweyn ku dambeysay laakiin waddanka markaan anuu ka tegay oo ka dhaafay waxaa la dhihi jiray beesana kuugu jirtaa jaabka hadda marka aadaan usoo dhaweynayaa inaan mar labaad aan arko shirkad Soomaaliyeed gaar ahaan bangiga IBS oo inoo soo celiyay 1900 ayaa ereyga beesa noogu qorneyd shilinka Soomaaliga ah marka Xaaji Banaadir wuxuu kunka waa bestis maxaa dhaar hadda kunkeena Soomaaliga ahaa oo la soo nooleeyay caawi mataqaana isbitaalkii lagu daweynayay ee markhaati ka yihiin ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha farxad ayay inoo tahay IBS bank waa ku bogaadinaynaa aad iyo aad gaar ahaan ka guddi ahaan waxaan leenahay waa la shaqayn doonaa si buuxda waana bogaadinaynaa waxaan leeyahay e-pesa waxaan akhriyay in la yiri waxaa la dhigan karaa ayuutada waxaa lagu ogaadee qurbaha iyo waddanka Soomaaliya aad ay ugu banaayay aad ay ugu yareeyay waxaan leenahay baarlamaanka ka bilaaban doonata ayuutada e-pesa ugu horeysan anaga furan doona waxa ay loo galay baarlamaanka laga bilaabay maanta shilimaadka aruursanayna ilaa e-pesa ku aruursan doono guddiga ganacsigaana bilaabi doona akoonka ugu horeeyana ayagaa furan doona si loo sheegay inay isla furan karaan dhowr qof oo kala nooc ah ama mataqaana shaqo ka dhaxayso ama baarlamaan ha ahaadaan ama dhalinyarada maxaa leenahay beesidii dadka ku aruursanaya e-pesa waaye maasha Allah soo dhawaada waa mahadsantihiin